maxadka laydab waa mid ka mid ah maxay ku yaalna magaalada Laascaanood lagu rabarto aqoonta saxaafadda iyo fagaara ka hadalka arday gaadhisa 105 ka qalinjabisay maxadka caalamiga laydab waxaana ka soo qayb galay aqoon-yahano salaadiin waxgarad iyo bulshada qiimaheeda kala duwan maanta waxay noo tahay maalin weyn waa maalintii aad ka qalinjabiseen maxadka horumarinta aadamaha Laydab Institute for Human Development macadkan oo ah macadkii labaad ee East Africa laga hirgeliyo mid isagoo kala ah waxaanu nasiib u yeelanay oo aysan gobollo fara badan nasiib u yeelan in macadkan oo kale laga asaaso waxaan u hambalyeynaa mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba ardayda qalin jabinayso aan leeyahay hambalyo kunjeer hambalyo maadaama aad dhamaysateen culuumtii aad baranayseen waxaan jeclahay inaan ka hadlo hal qodob oo ah horumarka gobolkeena Sool cidda soo saari karta waa bulshada bartan fadhida waa dhalinyarada waa aqoon-yahaniinta waa dumarka dhalinyaradan haatan halkan joogta ku soo biirtay bahda aad baan u soo dhaweynayaa aan rajaynayaa in qofkastaba هل من سكن من الجوانب أو كل شيء الجبيل ما ذلك إن شاء الله وحفظ يا قفل إنه سير عيدا وبرتم في هذا الدور وتبارك الله تقويه آدي بدنا سنتين على مين تكرر سوي ترى يوم ما حد قيمها وأنتي وقفل اليوم وقول يا شريعة شنطة أرضية كسر بحضي يدفع عندي اللي حد أنتي آدي بارتكوها مليانة ويوم كي كسر شقية عروته على سيوك عيي قراعة السينية وحوي ضد ذلك وحوي مانتنا وحوي قل الجبنيان يقرأ عاديات بلد مهدعنية يا بياشود كنت مالك قالي وي وحفلتي يروح ده بندل عالي ماتو مركان روح تيجي شيء وحوي هالكا محافظ يا أرضي دادو حتى يقول بدن تهاي لبي لبعتن عين تهاي إلى الحجر بافرديا إلى شنجر بافرديا وأبحي ودن كوي خضر محمد عبدي STN TV Laascaanood